waxaa jira qalabyo badan oo kala duwan oo loo isticmaalo kala dheeraynta dhalmada. qaar ka mid ah qalabyadaasi waxa ay leeyihiin daawo ama wax loo yaqaano hormones. qaar kalena waxa ay ku shaqeeyaan iyaga oo aan lahayn wax daawo ah ama hormoon ah. habka aan daawadu la soconin waa kuwa aan lahayn wax daawo ah oo jirkaaga gelaysa, waxaana ka mid ah habka naas-nuujinta ilmaha, habka tirsiga maalmaha, isticmaalka cinjirka ama kondomka, isticmaalka copper IUD oo ah aalad ilmo-galeenka lagu xidho, habka daawada ama hormoonka leh ee loo isticmaalo kala dheeraynta dhalmada waxaa ka mid ah kaniini la liqo, bac ama patch la isku dhajiyo, furaanti la gashado, cirbad la isku duro, IUD oo ah bir yar oo ilmo-galeenka lagu xidho. hababkan dhammaantood waxa ay ka siman yihiin marka ay hooyadu joojiso qalabkan waxa ay qaadi kartaa uur. habka ugu wanaagsan ee aad qalabyadan aad ku heli karto waa inaad la tashato dhakhtarkaaga.